له مدنياشا الدنيا هي مدنياشا لما أعرف السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. انت كنت مدنيا xaaladii guud baynu ka hadlaynaa dalka xaaladda guud ee dalku way fara badan tahay mid amni mid siyaasadeed mid sixir barar mid abaareed mid roob la'aaneed iyo dhammaan wax fara badan baa xaaladda guud ee dalku khusaysaa qodobka 9 dastuurkuna wuxuu tilmaamayaa tilmaanta guud ee golaha wakiiladu waa xubno ka wakiila dadweynaha waana qaybta koowaad ee xeerdejinta dalka ansixinta xeerarka ogolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hogaaminta dalka dastuurku wuxuuna siyaawado fara badan oo waxa weeye aynu dalkan wax kaga qaban karno marka aynu nahay mudanayaashu ay wakiil ka yihiin dadka marka golahan la joogo xaaladaha taagan laga hadlayo waa inaanay dareen xisbi iyo mid urur iyo mid waxa weeye maxaafid iyo mid mucaaradtoona aanay ku hadal ee dareenka dadka iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ay ku hadlaan sidaa darteed maanta shacabka reer Soomaaliland cabsi badan buu qabaa culaysyo badan baa saaran colaadaha ka jira sixir barar baa haysta iyagoo intaasoo dhan la soo diristay ayaa waxa weeye siyaasad muran siyaasadeed oo maanta waxa weeye intaaba kaga soo cusbaaday noloshoodii khalqa geliyeen oo dalka ka jira sidaa darteed waa inaynu ka hadalnaa xaqiiqda taalla dalka isla markaana aynu ilaalinaa sharciga oo aynu xeerarka iyo dastuurka waxa ay qabaan ku dabaqnaa xaalad kastoo jirta kamuu tegin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in xaaladaha taagan ama xaaladaha yimaada lagu xalliyo sida qodobka tobnaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigaya farqadiisa afraad jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay muranka siyaasad marka uu khilaaf siyaasadeed abuurmo in loo maro dariiq nabadeed iyo wada hadal dastuurkuna waxa weeye asaas u ah aragta markaad eegto wada tashi iyo waxa weeye kala wadaag oo dastuurkeenu ogol yahay intaaba waxaad moodaa inaynaan aynu baalmarsannahay oo aynaan waxa weeye aad uga gelin dhanka kale xeerarka mudanayaal inaynu xeerarka ilaalino waa lagama maarmaan maanta waxa weeye horta colaadaha jira ilaahay ha inaga soo afjaro dadaallo badanna waa lagu jiraa colaada la asxaanood tan kale ee waxa weeye iyaduna ayaamahan dambe ka jirta buurta gacan libaax dhammaanba horta inta ku dhimatay ciidamada iyo shacabkaba waan u tacsiyadaynayaa dagaalada ka socda dalka sida runtiina maanta culayska ugu weynayna haysta waxaa ka lambarwana muranka siyaasadeed iyo doorashooyinka mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxaynu ognahay in komishinku 17 bisha ku dhawaaqay bishii 7aad ama cayimay waqtiga ay dhacayaan doorashooyinka wuxuu cayimay doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada doorashada xisbiyada oo 28 bisha December ee sanadkan cayimay ma waafaqsana xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha qodobka 2 iyo qodobka 3 qodobka 6 iyo qodobka 10 iyo qodobka 12 qodobka 16 faqadiisa sharac qodobka cutubka koobaad qodobka qaybta koobaad qodobka 2 ee eray bixinta xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuu oranayaa xeer lambar 19 wuxuu oranayaa doorashooyinka qaranka waxaa loola jeedaa habka codbixiyayaashu ku soo doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka xeerku wuxuu halkaa caddaynayaa
inaanu aqoonsanayn doorasho afraad oo kale sidaa darteed cayimaadda doorashooyinka ay cayimeen komishinka doorashooyinku ma waafaqsana xeerka ay ku shaqeeyaan ee ah xeer lambar 1922 mudane guddoomiye iyo mudanayaal sidoo kale muddaynta ama cayimidda komishinka ay cayimeen doorashada xisbiyada ma waafaqsana qodobka qaybta labaad qodobka saddexaad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah xeer ay ku shaqeeyaan komishinka doorashooyinku xaydaabkiisana aanay ka bixi karin haddii ay tallaabo ka baxsan keenaanna waxba kama jiraan noqonaysa kana jawaabayo xeerka gudihiisana kaga jawaabayo xeerarka dalka iyo qodobka 8 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland si farqadiisa labaad oo odhanaysa xeer kasta oo aan waafaqsanayn ama qodob kasta aan waafaqsanayn dastuurka waa wax kama jiraan xeerkaasi wuxuu noqon xeerka qodobka saddexaad waa qodobka xadka adeegsiga xeerka iyo mabaadi'da guud wuxuu odhanayaa farqada koobaad xarafka a xeerkan waxaa lagu maamulayaa doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo hanaanka codbixinta guud qodobkaas saddexaad wuxuu inoo cadaynayaa inuu gabi ahaanba aan doorasho kale ama tallaabo kale oo uu tilmaamaya oo looga bixi kara xaydaabkiisa aysan jirin ee lagu maamulayo saddexda doorasho maadaama saddexda doorasho lagu maamulayo komishinku wuxuu ku dhawaaqay doorashada ururada tooska taasina xeerkan ma dhigayo maadaama aanu dhigayna kuma dhawaaqi karaan xaqna uma laha odanaya ku dhawaaqista komishinka doorashooyinka ee 17 bishii 7 2023 ma waafaqsana qodobka 10 oo odhanaya muddaxileedyada xeerkani tilmaamayo waa 5 sano dhammaantood 5 sannadood madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 5 sano golaha wakiilada waa 5 sano golayaasha deegaanku waa 5 sano qodobkaas wuxuu cadaynayaa inaanay jirin doorasho kale oo uu aqoonsan yahay xeerkan doorashada ururada iyo axsaabtana waxaynu ognahay siduu dhigayo xeer 14 inay muddadoodu 10 sano tahay waayo qodobka 16 farqadiisa shanaad oo odhanaysa komishinka uu tilmaamayo komishinka awoodaha komishinka waxay muddaynayaan kuna dhawaaqayaan doorashooyin natiijada doorashooyinka ay ku dhawaaqayaan waxa weeye si ku meel gaar ah madaxweynaha doorashada madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka qodobkaas wuxuu cadaynayaa inaanay doorasho kale ay ku dhawaaqi karaan aanay jirin natiijo doorasho kale ay ku dhawaaqi karaan aanay jirin sidaa darteed ku dhawaaqistii doorashooyin komishinka doorashooyinka ee soo baxday 17 bishii 7 waxay ma waafaqsanaa xeerkani wuxuu sida uu qabo qodobkani mudanaya ku dhawaaqistaasi waxay ka hor imanaysaa qodobka 6 farqadiisa qodobka 6 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha farqadiisa koobaad oo odhanaysa komishinka ayaa cayimaya taariikhaha la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka haddaba dhawaaqista komishinku ma waafaqsan tahay qodobka waxaan qabaa mudanayaa inaynu xeerarka ilaalino tabagalno isla markaana kula xisaabtanno cid kasta oo waxa weeye xaydaabkiisa ka baxda oo ku ilaalino xaydaabkiisa in lagu jiro waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye iyo mudanaya sidaynu ognahay laguma dhawaaqi karo lamana qaban karo doorasho aan lahaynin xeerkii lagu qabanayay
doorasho waxa lagu dhawaaqi karaa ama waxa weeye la mudayn karaa ama la qaban karaa marka la hayo xeer tilmaamaya qodobada soo socda habka doorashada loo gelayo iyo hanaanka xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka ka yimaada doorashada iyo sida loogu dhawaaqayo natiijada doorashada iyo qaabka loo kala helayo xeer tilmaamaya ilaa la helo doorasho lamana qaban karo lamana mudayn karo mana jiro xeer maanta tilmaamaya doorashooyinka guud ee doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo axsaabta qaranka sidaa darteed go'aankii maxkamadda ee xirfoodhiinka ka saaraysa golayaasha deegaanka doorasho haddii aan waa in xeer loo rogaa qaraarku xeer maaha soo baxay laakiin waa in xeer laga dhigaa si doorashadii loo qabto waxaan soo jeedinayaa mudanaya maanta culayska ugu badan ee dalkeenna haystaa waa doorashooyinka sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in la isa saaro doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada si waafaqsan qodobka 6 ee xeerka guud ee doorashooyinka farqadiisa 3 oo odhanaysa kumishinku wuxuu markiiba qaban karaa hal doorasho iyo wixii ka badan marka ay haboonaato maantana waxaan qabaa inay taasi taagan tahay waxaan qabaa in si xal loo helo oo maanta waxa weeye looga baxo caqabadaha jira ee muranka doorashooyinku ugu weyn yahay ee badankoodu waxa weeye dalkeena maanta ragaadiyay si looga baxo in la isa saaro doorashooyinka waxaynu kala ognahay dalka inay ka jiraan 3 doorasho oo ah doorashada madaxtooyada ta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada isla markaana doorashadii golaha guurtida aan xeer loo hayn oo iyaduna ay tahay doorasho afraad haddii maanta lagu daro doorasho ururo toos ah oo iyaduna waxa weeye shanaad waxay noqonaysaa inaynu sanadkiiba doorasho gallo waana ognahay inaynaan awoodeeda lahayn waxaynaan awoodeeda lahayna inaynu ku tallaabsanno oo waxa weeye aynu mar walba waxa weeye inaahno waynu meel marinaynaa ma inaanay habboonayn ma qabaa doorashada golaha guurtida muddo 25 sano ah waxay dib ugu dhacdaa xeer la'aan maantana doorashada ururadu iyadaan xeer lahayn baa la qabanayaa waa wax ka soo horjeeda xeerarka dalka iyo dastuurka qaranka taasna waxaan qabaa mudanayaashu waxaynu u dhaaranay dalkan iyo dadkan iyo diinta inaynu dalka iyo diinta ilaalino isla markaana waxa xeerarkeenu ina farayaan iyo shariicada diinta islaamka ku dhaqanno ayaa muhiim ah waxa weeye ilaahay aayadda 110 ee suuratul al-imraan wuxuu ku sheegay inaynu nahay ummadaha ugu khayrka badan 3 qodob baynu ku noqonnay ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah 3 qodob baynu ku noqonnay inaynu xumaanta iska reebno iyo inaynu wanaagga isfarro ayaynu ku noqonnay ummadda ugu khayrka badan haddaynu iska qaban weyno oo aynu xumaanta iska reebi weyno oo aynu wanaagga isfari weyno ma noqonayno ummaddii ugu khayrka badnayd mid kale aynu noqonayno waxaan soo jeedinayaa golahani waa gole awood dastuuriya leh isla markaana xaaladaha dalka ka jira wax ka qaban kara inaynu sidii laascaanood aynu u eeganayno sidaan saa u eegaynay ay gubatay la waayay inaynaan u eegan dalku inuu gubto iyo inuu baaboo iyo in inta hadhay ay waxa weeye isqunto sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa inaynu awooddeena muujinno oo wax ka qabanno isla markaana aynu adeegsanno awoodda aynu leenahay oo aynaan ku milmin urur iyo xisbi iyo siyaasad ee golahani waa golahan dadka kaga wakiilnahay ummad bayna soo dooratayna maanta cabsi bay ku jirtaa waxay u cabsanayaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo jiritaankoodii inaynu badbaadinaa baa loo baahan yahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa